soo dhowaada daawadayaasha sharafta iyo qiimaha badanow aalaaba kanaalka qalbi Soomaali TV waxaynu kaga hadalnaa arrimaha fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed. Haddaba maanta waxaynu soo qaadanaynaa isla markaana si dhammaystiran u falanqayn doonaa heesta loo yaqaan Janna Dunya ee uu soo qaaday fanaanka caanka ee loo yaqaan Guuleed Simba. Heestan oo macnaheedu yahay jannadii adduunka. haddaba waxaynu qodob u dhigdhigi doonaa isla markaana u kala qaadi doonaa falanqayn dhammaystiran oo ku saabsan heestan. sidoo kalena waxaynu falanqaynteena ku soo qaadan doonaa isla markaana isweydiin doonaa waa maxay waxyaabaha iska bedelay fanaanka loo yaqaan Guuleed Simba oo runaantii ah fanaan caana isla markaana fanaan lagu yaqaan fankiisa inuu horumariyo. haddaba maxaa ku dhacay fanaankan, maxaa iska bedelay? waxyaabahaas oo dhan baynu isweydiin doonaa. hadday noqoto dhinaca labiska, hadday noqoto dhinaca muuqaalka iyo dhinaca nafsadda, inagoo oo soo qaadan doonaa arrimo aada u waaweyn. sida ay u kala waaweeyeen way u kala dambayn doonaan. sidaa daraaddeed muuqaalkeena waxaad daawanaysaa bilowga ilaa dhammaadkiisa si aad u fahanto waxyaabaha iska bedelay fanaankan iyo weliba waxyaabaha ku soo kordhay noloshiisa, iyo welibana inagoo falanqaynayna heestan loo yaqaan Janna Dunya. ku soo dhowaada barnaamijka. laakiin haddii ay tahay markii koowaad ee aad soo booqato kanaalka qalbi Soomaali TV, fadlan calaamadda subscribe-ka taabo, kadibna calaamadda gambaleelka furo. intaa kadib waxaad heli doontaa wax kasta oo aanu soo dhigno kanaalkan isla daqiiqada aanu soo dhigno. ku soo dhowow barnaamijka. okay daawadayaal, waxaynu marka hore intayna mawduuceynaba gelin soo qaadanaynaa ereyada heesta inagoo ka hadli doonaa yacni abwaanka sameeyey waa abwaan qaaliya. abwaanka waxaa loo yaqaanaa Talasame. abwaankani waxa weeye heeso badan buu leeyahay ereyadooda, sidaasoy tahayna waa heeso aada loogu qanco. heestana ereyadeeda 100% waa alright baan leenahay, waana top weeyaan heestani xagga ereyada. bulshada daawatayna way ku qanceen. dhinaca kalena haddaynu soo qaadano musiga, haddaynu ka hadalna ama musicianka 95% waa okay, laakiin wax yar oo aan dhagaha u roonayn baa ku jira oo loo yaqaano damdam. yacni damdamta maaha, yacni dhawaaq yar buu sameynayaa. sidaa daraaddeed waxaan leenahay musicianka 95% waxa weeyaan musigaaga waa top weeyaan, waa ka uga horeeya. laakiin anaga aragtideeda waxay nala tahay in musiga marka heesta yacni waa inaan wixii sababaynaa. sidaa daraaddeed heestu marka ay jacayl tahay waa inay qiira music yar qiiraha la socdaa. markay farxad iyo jacayl la isku ladha ay tahay, sida imika fanaanka Guuleed Simba loo yaqaano, farxad iyo wuxuu qaadaya ereyada uu qaadayo waxa weeyaan farxad iyo jacayl la isku ladhay. waayo qof uu ka helay isla markaana uu jecel yahay, isla markaana uu helay, isla markaana noloshiisa kaafisay uu ka hadlayaa. saasoo tahayna musigu waa inuu noqdaa music maaragtay farxad iyo jacayl la isku ladhay, qiiro iyo weliba dhiirigelin waa inuu yeeshaa. musigana intaasaan kaga baxaynaa. dhinaca soo saarista iyo maaragtay wallaahi run ahaantii waxaan odhan karnaa Nabiil Bulle waa producerka heestan, waa top weeyaan. sidoo kalena waxaan odhan karnaa dhinaca maaragtay sound engineerka iyo asad faqdiid baa iskale. dhinaca kalena waxa weeyaan heestan waxaa ka qayb qaatay soo saaristeeda Billboard. haddaba bal waxaan u geli doonaa heestan markuu fanaanku sii soconayo run ahaantii labiskiisa yacni dhabarka waxa ugu yaala. haddaynu ka hadalno waxyaabaha iska sharaxan. sidoo kalena fanaanku marka uu sii socdo run ahaantii isteelka iyo welibana maaragtay muuqaalkiisa xaggiisa yacni dhabarkiisa run ahaantii aada buu wanaagsan yahay. sidaasay tahayna fanaankani inta hore dhalayna tusi maayo, laakiin soo jeedsigiisa ugu dambeeya waa marka uu gaarigeed galayo. isla markaana fanaankani waxa uu la yimi labis aada u qurux badan. labiskaas oo ah labis u eg timihiisa, yacni timahan uu soo daystay, welibana timihiisii oo la habeeyey weeyaan oo la magaranaysaa la qurxiyey. sidaa daraaddeed iyo shaatiga wuxuu leeyahay run ahaantii way soo egayeen. dhinaca saacadda way u eg tahay. intaasba waynu ka haynaa. inuu fankeena horumarana waynu jecel nahay.
fanaaniinteenu inay horumaraan run ahaantii aad baynu jecelnahay. weliba inay shaxshaxdan uu keenay fanaanka loo yaqaano guuleedsinba inay la yimaadaan weeyaan. run ahaantii muusiga farahaabuu ku tumanayaa fanaankan loo yaqaano guuleedsinba. sidaasoy tahayna heestani waxaynu odhan karnaa waa tob weeyaan, laakiin waxyaabaha iska khaldan way jiraan, waxyaaba fanaanka kusoo kordhana way jiraan. waxyaabaha kusoo kordhay haddaynu ka hadalno oo wixii khalad ah aynu dib u dhigno, waxa weeyaan fanaankani run ahaantii waxyaabaha noloshiisa kusoo kordhay yacni waxa weeye isteelkiisuu sii horumariyey, sidoo kalena maaragtay fankiisiiyo horumar weyn uu kasii sameeyey. laakiin run ahaantii fanaankan waxaan u malaynayaa qiyaasteyda inuu u socdo inuu yaro cayilayo ama buuranayo, taasina run ahaantii fanaaniinta uma wanaagsana. taasna waxa weeyaan waxaad ka garan kartaa muuqaalkiisa. run ahaantii fankuna waxa weeye marka horeba isteelka in la saxo. haddaba guuleedsinba waxa weeye fanaaniinta waxa uu ka mid yahay 5 fanaan maya 3 fanaan ee ugu isteelka wanaagsan Soomaalida. run ahaantiina waa fanaan soo bandhiga yacni heeso bulshada qanciya. laakiin markaynu eegno heestan, run ahaantii heesta koobaad yacni waa heesihiisa oo dhan marka laysu soo geeyo waxay ka mid tahay 3 heesood ee safka hore ku jira. haddaba maxaa khaldan, maxaa fanaankan kusoo kordhay? run ahaantii aniga aragtideeda waxay la tahay fanaankani yacni dhinaca timaha marka uu soo daystay waa okay, laakiin run ahaantii timaha in saa loo sii qurxiyo, weliba nin raga inuu sii qurxiyo oo maaragtay timihii midab u yeelo oo waxyaalahaas isaga way la wanaagsan tahay. laakiin qiyaastii waxay aniga ila tahay yacni maaragtay in timaha ay dumar ku qurux badan yihiin. run ahaantii waxaynu rajaynaynaa in fanaankeennu insha allah uu sidaa wax ka bedeli doono, sidii horena uu ku wadi doono haddii ilahay dhafanka. waxaa jirta timaha oo casuus la mariya fanku kuma horumaro, laakiin waxyaabo kale oo badan buu fanku ku horumari karayaa. run ahaantiina haddaynu Soomaali nahay waxaynu jecelnahay fankeena inuu bulshada yacni geeska Afrika ugu horeyn inuu qabsado iyaga. iminka waad arkayseen waxaa jira heeso hore Soomaaliyeed oo maaragtay qaraami ahaa oo dib loo soo cusboonaysiiyey, welibana ay soo cusboonaysiiyeen bulshada agteena degan sida xabashida, yacni Itoobiyaanka iyo weliba Kenyaatiga. waxaa ka mid ah heesaha diriya oho diriya diriya heestii odhan jirtay. waxaan filayaa inay lahayd fanaanadii loo yaqaano Khadiija Qalanjo. haddaba fanaankan loo yaqaano guuleedsinba aynu soo laabano, waxa weeyaan dhinaca isteelka iyo weliba dhinaca maaragtay erayada iyo weliba dhinaca maaragtay muusiga iyo weliba dhan kastaba tob weeyaan heestiisa. yacni waa hees aad u horumarsan. run ahaantiina waa loo qiraa fanaanka, idinkuna Soomaaliya waad u qiri doontaa ma rajaynayaa. laakiin halka bointiga koobaad ee maaragtay heestan uu maaragtay fanaankani galay waxa weeye timahaasun weeyaan. run ahaantiina waxaan odhan lahaa anigu qiyaastayda fanka Soomaaliyeed si uu horumaro waa in dhaqankeena lagu horumariyaa. dhaqanka aynu leenahay waxaa ka mid a yacni sidii maaragtay awalba dhaqankeena u ahayd muddooyinkii hore ilaa waqtiyadan dambe waa uu jiraa dhaqankeenu. laakiin waxaa dhaqanka Soomaaliyeed ka mid a in maaragtay labiskii iyo weliba si timaha aynu goosan jirnay iyo welibana maaragtay dharkii aynu xidhan jirnay wixii oo dhan inaynu ka horumarino yacni dhaqankeena. haddaba fanaaniinta Soomaaliyeed waxay ka turjumayaan bulshada Soomaaliyeed bay ka turjumayaan. sidaa daraaddeed inagoo yacni fanaanku fanaan iskama aha, bulshada ayaa fanaan ka dhigtay. sidaasay tahayna fanaaniinta Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay maaragtay dhaqankii Soomaaliyeed adduun weynaha u gudbiyaan, maadaama dadka daawanaya aysan Soomaali kaliya ahayn laakiin ay yihiin bulshada adduunka oo dhan ay yihiin. sidaasay tahay waxaynu u baahannahay in fanaaniinteenu ay horumariyaan dhaqankeena. laakiin dhaqanka la soo guurinayo sida iminka timaha casaasoo kale ma wanaagsana aniga aragtideyda. laakiin fanaankan iyo fanaaniinta kale Soomaaliyeedba waxaynu ku dhiirigelinaynaa in dhaqankeena inaga la horumariyo. dhaqan baynu leenahay, waxaynu leenahay xadaarad baynu leenahay. ilaahay Soomaali waxa uu siiyey geeska Afrika, yacni waxa ay degayeen Soomaalidu geeska Afrika ay degayeen. haddii geeska Afrika la odhan lahaa oo magac kale loo bixin lahaa waxaa ku habboonayd geeska Soomaalida. sidaasay tahayna fanaanka guuleedsinba iyo weliba fanaaniinta kale waxaa laga rabaa in Soomaalida maadaama ilaahay dhul gaara siiyey oo geeska Afrika la yidhaahdo oo weliba keligood ay degaan oo gaar ahaan yacni dhinaca yacni bari maaha laakiin dhinaca geeska Afrika ay Soomaali degto u badan tahay oo Soomaaliba ay degto. sidaas aawadeed waxaa laga rabaa fanaaniinta Soomaaliyeed inay dunida tusaan waxa aynu nahay inagu. run ahaantiina fanaaniinta Soomaaliyeed
waa inaynu garabkooda taagnaanaa, waa inaynu horumarinaa fankeena, waa in iyaguna ay ku dadaalaan oo markaa ay naga arkaan dhiirigelin, waa inay iyaguna sameeyaan yacni sidii ay fankeena yacni u horumarin lahaayeen iyo dhaqankeena. laakiin run ahaantii anigu waxaan odhan lahaa labiska iyo sida timaha loo goosto iyo welibana maaragtay waxyaabaha la muujinayo dhammaantood inay dhaqanka ku salaysnaadaan. waayo maanta Itoobiyaanka iyo weliba Hindida iyo bulsho kastaba dhaqankeedii bay horumarinaysa, waana ku ammaanan yihiin. sidaa aawadeed innaga in dhaqankeenii uu heesaha kasoo dhex muuqan waayo waa wax aada u xun, waa wax aan magaranaysaa yacni run ahaantii aada u liidata weeyaan. yacni ummad walba fankeedu yacni dhaqankeeda ayaa kasoo dhex muuqda. iminka waad aragtay Hindida iyo marka laga hadlayo dadyowga kale sida maaragtay carabta, sida maaragtay qolooyinkan la yidhaahdo geeska Afrika inala degan sida Kenyaatiga ee Itoobiyaanka, dhammaantood dhaqankoodii bay muujiyaan. way jiraan heesa si caalamiya loogu talagalay, heesahaas oo ah raab oo maaragtay labiskii ugu dambeeyay la xidhan kara adduunka, laakiin haddana wayna dhaqankaaga horumaraysaa. waayo xataa iska daa inay Soomaaliyo kaliya ku jeclaato, marka aad dhaqankaaga horumariso xataa bulshooyinka adduunka oo dhan baa ku jeclaanaysa. waa marka fanaaniinteenu ay fankeena horumariyaan. haddaba waxaan halkan ammaan uga dirayaa isla markaana yacni hambalyo aan leeyahay fanaankeena qaaliga Guuleed Simba oo run ahaantii ah fanaan yacni horumariyay fanka marka laga eego fanka dhalinyarada, gaar ahaan midka maaragtay yacni raxlaynta iyo muusiga iyo weliba isteelka. laakiin mid kale ayaan ku dari lahaa run ahaantii fanaaniinta Soomaaliyeed ha iska daayaan garbaha ay ka ciyaarayaan oo keliya, laakiin ha ku daraan dhinaca yacni waa hees kasta markay soo qaadaan waa inay jaas cusub la yimaadaan.